wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducaale oo ay weheliyaan maamulka gobolka Togdheer ayaa kulan hawleed hal maalin ka furay Burco. kulankan ayaa ujeedadiisu ahayd wacyigelinta bulshada gobolka Togdheer gaar ahaan deegaanada iyo degmooyinka ay ka bilaamayaan sahaminta shidaalku. waxaana goobjoog ka ahaa kulankani gudoomiyayaasha degmooyinka, tuulooyinka, cuqaasha, odayada iyo waxgaradka Togdheer. gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleeban Ramaax, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maxamed Diiriye Xayd iyo agaasimaha waaxda degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Cali Daalin ayaa waxa ay soo dhaweeyeen mashruucan iyagoo wasaaradda macdanta iyo tamartan uga mahadnaqay dadaalka ay ugu jirto ka mid dhalinta howlaha qaranka ay u hayso. wax laga hadlaba waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasiirka macdanta iyo mar labaad shirkadda hawshan wadata oo madaxdeedina la fadhido runtii horena carqalada halkan uga yimaadeen waxaan idin ballan qaadaynaa inaan maanta kuwii hore kale ku imanaynin insha Allah taala dadaal badan baan samayn doonaa dadkaygana waan qancin doonaa waxaan inaynu ka gungaarnaaba dantu runtii inoogu jirtaa waxa kaliya iska ilaalinaynaa ashqaasta danaha gaarka leh annagoo isku duuban balan qaadaynaa haddaan nahay haydmaanadayada oqaasha iyo maamulka gobolkuba iyo ka degmaduba inaan ula shaqeyno si niyad samiya wax ka soo nagu hor yimaadaan si midnimo uga hortagno inaynu horta danteedina u garanno danba ay noogu jirtaa waa tala sheegay waxa mustaqbalkeena baa ku xiran shaqadii baa ku xiran horumarkii dalka ku xiran inagana waxay nagu xiran amnigii iyo nabadgelyadii waana mahadsantihiin aad iyo aad baan idin soo dhaweynaa waana aadaan nahay wasaaradda arrimaha gudaha waxa la wixii taalkayga nabadgelyo ah waan ka shaqeynaa awoodna waan saaran hadii ilaahay ka dhigo. agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta Siciid Axmed Jibriil ayaa isaguna ka warbixiyay ujeedada kulankan. ujeedada aan kulankan u qabanay wuxuu daaran yahay waa bilowga sahanka shidaalka ee labada block 10 iyo 13. ujeedada aan ka leenahay kulankani waa isbarashada bulshada iyo wasaaradda tamarta iyo macdanta. ujeedada kulanka ay wasaaraddu ka leedahay waa warbixid guud oo ay wasaaraddu siiso deegaamada mashruuca iyo qaabka uu shaqeynayo. ujeedada ay ka leedahay wasaaraddu kulankan waxa kamid ah isfahamsiinta hanaanka farsamo iyo qalab ila adeegsanayo. wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Xuseen Cabdi Ducaale ayaa ku dheeraaday faa'iidada ay bulshada u leedahay haddii uu galo mashruucan isagoo dadweynaha ugu baaqay in la soo dhaweeyo oo la isla garab galo hawsha sahaminta shidaalka ee hagaysa wasaaradda macdanta iyo tamarta. Sofia Hancho ayaa lagu qabanayaa shaqadan marka runtii wasaaradii macdanta iyo tamarta ayaa hawshan wadee shirkadii ganaayle magaranaysa jeebabka ballaadheed meesha ma wado waa shirkad waa wasaaradii macdanta iyo tamarta oo ay dawladda ka dambayso waa mashruuc dawladeed marka mashruucani waxa uu ka gudisay mashruucii hore waa shirkad ma ahay waxa way idin hortaagan waa wasaaradii yareed ee macdanta iyo tamarta ayaa shaqadan socodsiinaysa oo rabta inay sida u socon lahayd alla garab gashaan oo maalinka maanta hareeraha la qabataan ayaa meesha maraysa sida wax inoogu hagaagaan oo inoogu dhamaadaan runtii shaqadan maanta la qabanaya anagu wajigan hore la wareegnay wasaarad ahaan oo ay sharaa'igu maalinka maanta maalgelinayaan macluumaadka qaanu ka iibinayna waxay weeye muxuu ahaayay waxa la yiraahdaa seismic ama waxa weeye waxyaabo magaranaysa ku saabsan culumta macluumaad laga qaadayo dhulka guudkiisa laga qaadayo la motish machine garaacaya runtii marka shaqadani ma aha qodaal batrool baa leeyahay qodaya hadalku waa ku badan yahay dad badan baa markay ka hadlayaan shaqadan batroolkii qodaalkii baa bilaamay wax allaale wax la qodaya oo batrool la moogti la qodaal la galaya imika ma jirto waa sahankii waa wajigii ugu horeeyay ee hordhac ahaa weeye oo mashiinada waaweyn shaagaga waaweyn leh oo marka Absaar Faarax Cabdilaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.